Ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Ninkan la qabtay ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Cabdi Maxamed Cumar, waxaana la sheegay in dhowr sano uu ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale ay sheegeen ninkani oo muuqaalkiisa ay soo bandhigeen inuu Al-Shabaab uga biiray gobolka Bakool, sida uu sheegay Maxamed Khaliif oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay ciidamada dadka deegaanka ee gacanta kusoo dhigay sargaalkani la sheegay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab. Howlgalka lagu qabtay Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada lagu kala magacaabo Qoryo Weyn iyo sidoo kale Hul Caduur oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Ciidamada dadka deegaanka ee macawisleyda ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo howlgalkii ugu dambeeyay ay gacanta ugu soo dhigeen ninkani. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in howlgallo dhowr oo ay sameeyeen ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, deegaanana ay kala wareegeen. Howlgalladan ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu hakad galay howlgalkii ka dhanka Al-Shabaab oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada beesha caalamka, kaasi oo wejigiisa koowaad uu ahaa mid gabagaba marayay. hase ahaatee waxaa la fahamsan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan wado qorshayaal kale oo ay ku doonayso inay dib ugu bilowdo howlgalladaasi, iyadoo oona wararku qaar ay tilmaamayaan in dowladdu ay markani doonayso in maamul goboleedyada qaar ay ku bilowdo howlgallada, isla markaana si rasmi ah loo bilaabo wejiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab oo horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Inta badan ciidamada dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo ka sameeya deegaanada dhaca gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyadoo oona ay labada dhinacba guulo kala duwan ka sheegtaan, walow haatan uusan jirin dagaal rasmi ah oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay halkaasi.